mararka qaarkood sheekooyinka ay wiilwaal ka wariyaani waxay u egyihiin sheeko xariiro in la rumaysta ay adag tahay si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah degaankii uu jeer ka talin jiray odayadii ku barbaaray oo aanu la kulannay ayaa waxay ku warrami jireen inuu jiray xeer uu samaystay oo madaxdii soomaalida kale uu kaga duwanaa waxay odhan jireen garaadku kolkuu sadcaalo meesha uu kolba ku hoyan doono iyo cidda uu martiyi doonaba waa la sii ogaan jiray saa dambe oo kale reerka uu ku beegan yahay ayaa soodadiisa qalqaalo u geli jiray sida la leeyahayna waxay martisoorka ugu dari jireen haweenay laga dhintay ama la furay oo carmal ah taasoo si degdeg ah loogu guurin jiray galabnimada horeba inta loo meheriyo ayaa habeenkaa loo hoyn jiray waa berigiina intuu furo ayuu ka jeedlan jiray waa arrin dhab ahaanshaheeda aan cid xaqiijin karta la arag waxaase jirta sheeko ay soomaalidu aad u taqaan ayna u daliishadaan in dhaqankaas layaabka leh ay wax ka jireen waxaa la yidhi wiilwaal baa maalin maalmaha ka mida u yeedhay dahabaduula haweenaydii siduu ku guursaday aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadnay ee uu caqligeeda badan ugu xishay wuxuu ku yidhi muddo ayaan maqnaanayaa waxaan ku tashanahay sodcaal dheer kolkii haddaba aan soo noqdo aan kuugu imaado adiga oo haysta wiil aad dhashay oo aniga ii eg iyo genyadayda oo faraskayga u eg iyaduna dhashay oo haysata haddii kale luquntu kuguma ooli doonto waa xujo iyo yaab haweenay uu ninkeedii sadcaal ku maqan yahay sidee bay ku uuraysanoo ay wiilal u umuli way umuli kartaayoo gogoldhaafba waa lagu keenaaye sidee buu wiilka ay dhashaa uga ekaan karaa ninkeedii muddada ka maqnaa dhanka kale faraskiisii haddii loo xakameeyey oo inta wejiga shaal loogu guray loo shaqlay isaguna uu ku sodcaalay sidee bay ku suuroobi kartaa geenyadii heblo ahayd ee uu reerka kaga tegay intay rinto in neef faraskaa u eg laga soo jiido sooyinka garaadka sidii loo furi lahaa iyo wixii laga yeeli lahaa in lagu dhaqaaqa ha joogtee in dooda laga celiyaa cidna uma bannaanayn arraddiisana allaha ka dhigee ruux naftiisa rajo ka qabaa inuu maya ku yidhaahdo kumuu dhiiran karin dahabaduula walwal baa ku dhammaaday sidii ay xujadaa ku furdaamin lahayd ayay habeenna u soo jeeday waxay talooyin dhowra rogrogto oo kala doorataba ugu dambaystii ayay inta mid ku xasishay istiri alla ilaahay waad haysaa oo inta isu bogtay dhoolaha ka qosashay baryahaas halkii wiilwaal lagu malaynayay ayay tooyatay reerkii geediga ahaa iyo kii nagaaba way weydiisay ninkii socotada ahaa ee ay aragtayba way haybisay waxaa loogu warramay reer hebel buu habeen saddexaad la hoyday mar kale waxaa loo sheegay nin hebel baa habeenkii xigay degme heble ugu loogaayey mar kalena waxaa lagu yidhi maalin hebla ayaa fagaarihii weynaa ee meel hebla loogu dabaaldegi doonaa 2 cisho kadib reeraha uu ku hoyan doona markay hubsatay ayay waaberigii mariimatay dharkeeda kii ugu bilicda roonaa waddadana cagta saartay iyada oo ku joogta geeyadii uu u tilmaami jiray oo beedaran cilcilowga fiidkii goor ay tahayoo aan habeen iyo dharaar loo kala garan ayay si dhuumasho u eg waxay ku soo gashay galabtadii hore reerihii oo wiilwaal caraabada ku yimid waxay gees ula baxday duqii ugu weynaa odayadii sooriya qalqaalinta garaadka ku hawlanaa haddiiba intay isu sheegtay ayay ku tiri nin yahow heble hebel ayaan ahay ooridii garaadka ayaan ahay qof arrin culusi wareerisay baan ahay dahabaduula oo xujaysan baan ahay waxaan kaa duraamanayaa qoolka qoorta iiga maran inaad ila furfurtid ruuxa dumarka ahi waxa ay u sheegi isaga oo ka yaaban ayuu odaygiina yidhi maxaa ku helay qoolka kugu maranse muxuu yahay markaas bay u sheegtay xujada furitaankeeda laga sugaayo ee iyada iyo ninkeeda dhex martay afkaraqaad baa duqi ka soo haray meel uu wax ka bilaabo ayuu aqoon waayey wuxuu aamusnaadaba markii dambe ayuu ku yidhi maandhay si aan wax kuula farsameeyo iyo irid laga baxo midna anigu garan maayo igamana sugtid markaas bay tidhi irid aan ka baxo in aad itustid kuguma imaan kaalmo un baan kaa doonaya taladaydu way i dhooban tahay hadhow fiidkii haweenaydii uu caawa la aqalgeli lahaa halkii aad uga geyn lahaydeen aniga ii geeya si aan ula hoydo waxaan ku mala weynahay inaan qaadi doono oo astaamihii uurka aanada u ahaa ayaan isku ogahay aniga taaha la ii fuliyo midda kale geenyadu way beedaran tahay oo soo celin maysee iyadana isla caawa faraska garaadka ha loo hayo hawraarsan iyo guddoon ayuu odagiina yidhi isaga oo la ashqaraarsan sida ay taladu u habboon tahay haweenna u quurila dahabo oo kale inay ku jiri karto suuryadii kolkay dhammaatay dabina loo sheekeeyey ayaa waxaa la soo gaaray qoftii la bari lahayd goortii wiilwaal loo keeni lahaa kolkaas baa waxaa halhaleel u soo booday oo hadalkii boobay fiidkii dahabaduule odagii ay wax isku ogaayeen wuxuu yidhi bilic hadday dumar lahaayeen cawo kale yeelkeeda garaadow caawa waad haysaa
kashaadu sidaa ha ku qabowdo khayrayn buu isna la muusooday habeenkaana dhaxantii gelin hore iyo gabadanadii aroornimoba waxaa gabaad uga noqotay dahabo oo inta loo soo hadoodilay aroos cusub looga soo dhigay si haddaba wada joogga habeenkaas aanu garaadku berri ka maalin ugu dafirin oo haddii ilma ku beermaan aanu ugu malayn fal gogol dhaaf keenay maxay talow yeeshaa durba xeel bay heshay tudhii horeba markii uu gacantogaaleeyey ayay ka durugtay way ka sii jeensatay intay u jir xumaysay bay haasaawihiina ka xiratay markii uu doocdoociyey oo hadba uu dhinac ka maray oo waa ku sidayso inaan garaadkii ahay ma ogid uu dhowr jeer ugu celceliyey ayay tidhi fargashiga aad qabto iska soo bixi oo isii haddii kale dabadeedna isaga oo aan is ogeyn ayuu inta degdeg isaga soo saaray ku hubsaday fardhaxadeeda faryarada iyo faadumada u dhaxaysa isla markaa iyadu ay garaadka gubasha la jiifto odaygiibaa sidii lagu ballamay wuxuu meel isugu geeyey faraskii iyo geeyadii ay iyagana xujadu ka aroosnayd intii aan waagii dhab u beryin iyada oo weli uu cirku isku jiro ayay dahabana gubashii garaadka u soo bannaysay oo intay geeyadii kooraysatay u jarmaaday halkii ay reerkeedii ku ogeyd kabil hadduu maqnaa ayuu galabtii dambe isaga oo faraskiisii weyrax ku jooga soo dhigtay kagana degay daahiyo weynihii dahabo ardaagiisa sheedda aqalka ayuu midhacsaday mase waxaa ku mayracanaya geeyadii iyo darmaan ay dhashay oo aan laga aqoon faraska uu hadda meesha kaga degay wuu yaabay waxaase uga yaab badnaa markii ay dahabo aqalka ka soo baxday iyada oo naaska u dhigaysa wiil si wacan u kobcayoo aan isaga laga aqoon markaas buu ismadax maray indhihii baa haddiiba guduutay cadha iyo ceeb wada socdaa ku kulmay wuxuu u maleeyey dahaba inay simbireeraxatayoo intuu maqnaa ay magaciisa meel uga dhacday isaga oo aan waxba weydiin ayuu seeftiisii afka badnayd galka kala soo baxay oo xaggeedii u soo degdegay wuxuu maagan yahay iyada iyo wiilkaba inay caawa waraabayaashu ka hamuun beelaan markaas buu isku daray isaga oo seeftii qaabsaday iyo su'aal gaaban oo ahayd ilmaha aad sideeto xaggee baad ka keentay intay dhabarka ka soo wareejisay ayay ugu jawaabtay horta waa wiil waana ina garaad xirsi foolkiisa ayay ka garatay inuusan rumaysan dabadeedna si aanay seeftu luqunteeda ugu dhicin ayay haddiiba waxay farteeda ka soo saartay fargashigii ay ka qaadan jirtay hortiisa intay ku tuurtay ayay tidhi garaadow kaatunkaa ma aqoonaysaa isna markii uu eegayba wuu aqooday sidii ay sheekadu u dhacday ayuu dib u xusuustay halkii ayuu ku qaboobay oo habeenkiina intuu wanweyn ku allabariyey wiilkii ugu waqlalay saw sheeko la yaab lama noqon